قرية وصان يقول لها عسنا نفتح أنت تلفون السلة يقول كل عفسين فرتك صار نانا كنياجا نينك لا دهايو waaba magacyo qamartiyaal ah waa niman tuuga ah oo shacab ah nimankaas asaga watay sida uu sheegayo qoraaladiisa been way sheegtaa kuma baado tuug la qabtay tala malahan aniga gartaan waa galay bismillaah ujeedo eedid ku ah eedeysane si waafaqsan qodobka 71aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed dablo xooga 45262 daayir maxamuud warsame maska 28 sano jir ah ina xaliimo xaashi maxamed ku dhashay degan degmada Yakshiid kana tirsan ururka 312 guutada 31aad jugta culus ee taliska ciidanka dhulka xooga dalka Soomaaliyeed waxa lagu eedeynayaa inaad dhac u kala geysatay dhibanayaasha kala ah 1 maxamed ibraahim suleymaan 2 cabdi maxamed xuseen 3 bilaal nuur jimcaale 4 cabdiraxmaan abdullaahi maxamuud adigoo ku dhacay qori AK47 kana qaatay telefoonadooda falkaas oo ka dhacay degmada Dayniile taariikhdu markay ahayd 12 bisha 2 2026 dambigaas oo ku xusan qodobka 484 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidoo kale waxa lagu eedeynayaa in aad markii aad dhaca u geysatay dhibanayaasha aad ku soo dhaxdhacday ciidanka booliis militaro oo gaafmeer ku jiray kadibna aad xabadeysay ilaa ay gacanta kugu dhigaan falkaas oo ka dhacay degmada Dayniile taariikhdu markay ahayd 12 bisha 2 2026 dambigaas oo ku xusan qodobka 27/34 xeerka nabadgelyada guud doolanka qaba habeenayd maxaa ku weysneed qoraa ka wad dhacna waa geystay shanta ruux ee aad sheegtay telefoonada ka qaadatay ma telefoon waaweyn ama telefoon yar yar waa telefoon waaweyn ayna Samsung kadib maxaa fash kadib ciidan ay goor yimid anay xabad ugu rideen sidii bay dhayn meel aan dhaqaaqaa waay waa sidii ma jirtaa inaa ciidanka xabadeys ma xabadeen ciidankaas been ay sheegeen adigu askari ah in shacabkii aad u dhaaratay inaad dhacdid inay dambi tahay soo moogid si fiican waa ogaala qaladka waa iga dhacay arrinaan haysatay arrinta ku haysatay arrin family ay haysatay arrin family marka dhacmaada lagu xaliyaan waa iga dhacday qaladka waa geystay arrinta arrin family ay haysatay oo aniga oo ugu cakirneed lacag aan u weysanay saas ay u qasabtay laakiin qalad inay tahay waa ogsanaa telefoonadii marka aaw hadda saddex ta laba maqan intee jiraan laba maqan qof la socda la carar qaatay xogtiisa qofkaas maqan ciidanka gacanta kugu dhigay ma la wadaagto gacanta ma lagu soo dhigay waa shay way bursaday waa qaw waayeen waa ka carari xaafadiisa ma taqaanaa asagna qofkaas qof shacab waa xaafad degmadaas ku baran anigaas magaciisna naanaysa ka qaana Allah naana si fiican xilli aqal mushaara aan joogay lacagta way maqneed laatii kood bishii labaad ee 2026 mushaarku ay dib dhacay xaaskii xanuunsaneed hooyadeen anaa gacanta ku waayo bil siinayay lacagtana ma soo dhicin meelaan u laabtaan waayay shaydaan ay qaaday nafi shaydaan qaladkan ku geystay gabadhaas xanuunsan inaan masruuf ama ugu dhigo lacag daawo aan ugu dhigto darteeda aan fiiskan ugu leh in raadisa ma ahayn oo dad waa raadiyay dukaamada deynka qaadanayna xilliga aqal mushaareed badanaan ku sii karnaa lacag kuma sii karnaa inuu jawaabay meeqa jeer lagu xiray adiga waa markii koowaad maxkamadda ku soo muuqday marar kale oo fal noocaan oo geysto maxkamad aadan soo gaarin ma jirtaa ma jiro fal noocaan oo kale geystay laakiin waxa jiray anoo aan iskeysanin oo lagu eedeeyay naanays aan maska aan kiisas muxuu ahaa kiiskaas dilo oo aan ma geysanin سيدي اللي بارتي محكمة والي كيني وأنا في صحة. ما عمل حرنيت. سدح ما أنا بارتي اللي جواي بس. ديركاس أنتوا كده عروقوا إيه ديني لو كده عاي رجلا جيسين دفاع أجر هلاس. حكيني هذا الدفاع جرو إن ديل جوا إيه. ناس ما عن إلا لا ديك جيست يركلوا السعودين. مرقاتي عدنتي محكمة سيدي كحرنا أنا وعدي واي نكامارو نكلة واي. أنت مركي اللي كان أنا. عفيسة محكمة دي وفسحة. سنة كاهد. لا تقول شيء لا تنكهد. هذا سنة كده بعد الفرق كان اللي جوه كيس كان غير على كوا واجيستي نفي شدان وقسم. أي فريس. فرصة ناصي سين سنة دبل حوجة داهر محمود ورسمة الله يقعنا ناس تمسكع إن دعودي سمعنتها عند سنة فرصة ناصي محكمة ده وجمع علنا هذا سنة سوى فقصن قلب بقول صدح سؤال شيء جرسورك ويدي هذا اسمه الشيء وحشاجين وقلي وكرن الشاقي waxaan rabaa marka mudane gudoomiye say wax u dhaceen maalintaas koolaadkii bisha labaad 2026 xilli goor habeena sanaha waxa la joogay laba nin oo dhalinyaro ah oo shacab ah oo lagu kalnaaneeso inta uu hadda nooga sheegay naana mid naana allaha midna waxa la dhahaa kanyaga hadii la fiiriyo
sida uu hadda qiraalka u sameeyey oo uu leeyahay haa dhacas waa geysanay iyo caddeyntii laga qoray iyo qiraalkii laga qoray garsoorka horgeyntii koowaad si waafaqsan qodobka 39aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed kuna waafaqsan qiraal 68 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed qiraal uu ka qoray garsoore haddii la isku fiiriyo mudane gudoomiye xalag meeshaas ka cad naana iyo kanyaga ninka la dhahayo waaba magacyo qamartiyaal ah waa niman tuuga ah oo shacab ah nimankaas asagaa watay sida uu sheegayo qoraaladiisa wuxuu leeyahay habeenada ka mida waxa aan go'aansaday inaan dhac geysto qamartiyaashan uu yaqaanay uu yiri nabadiya waa la baxay waxaa la dhacay muwaadiniinta xaashida aad ku xusan oo haddana maxkamadda ku jooga محمد إبراهيم سليمان عبد محمد حسين بلال نور جمعالي عبد الرحمن عبد الله محمود يا عبد الكريم مقعينا صوت رناي وحواي رك شقالة oo subaxii 11 saac subaxnimo guryahooda uga soo baxa caruurtooda inay u shaqeeyaan saddex gaadiidley ah mid dukaan la ah iyo waxa waaye intaas waay kan dukaan la ah waxay ka dhaceen laba taleefan ay ka dhaceen saddexda gaadiidleyda ahna min taleefan ay ka dhaceen wuxuuna ku qabtay oo uu ku ugaarsaday dadka shacabka ah goob laamihii amniga kabiira fog oo magaalada daafaheeda ah oo degmada Daynile ku taalo waaxda gurdamac hoos tagta kaamamka xaafadaha la dhaho oo gadaal dambe magaalada waa xaafado iska danyara bulshadu ku badan tahay gadaal dambe kaamam aad u tiro badan ayaa ku yaalo ka xafiisahan waa tagnay waa soo aragnay haddii loo fiiriyo marka eedeysanaha iyo xafiiska uu ka tirsanaayo oo ah taliskii ciidanka dhulka gaar ahaan jugta culus iyo ficiladu ku dhaqaaqay waa nasiib daro iyo ayaan daro u soo jiiday sharafka iyo sumca ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaan maxkamad sharafta la ka codsanayaa in loo yeero marka koowaad in maragyadaas dhibanayaashaas loo waco sidoo kale loo yeero askartii qabatay oo markii la qabanayay isku dayay inuu dagaalamo askartu ku soo dhacay xabad uu riday dhinacyada ka mareen oo saasa lagu qabtay aad u tababarana qabteen marka mudane gudoomiye waxaan rabaa in la dhageysto dhibanayaasha iyo askarta soo qabatay qiraalkana loo akhriyo kadib baaraha loo yeero maxkamad sharafta la maasantahay horta aan mid feegoona wata laami gorkeen oo wadan Daynile gelis sarku islaamiga sabdees Daynile gelis maray meeshan meel goofe eed cidlay waxaa la socotay laba qof iyo askariga ahaayeen laba qof oo qori aan wadinin iyo askariga ahaayeen marka aan hal qof kala wadi qofkii meesha ku dajinay qofkii markuu meesha uu ku dagi dadkaan meesha goofkeena ay soo baxeen marka wiilkii meesha ku dajinay wuu orday marka labadii kalena labada la socotay mid hortiisa istaay askariga qori uu qabtay kan kalena anu ibaari mobilka iga baxsaday waa iga tageen anna dadka hadda mobilka iga qaatay mootada iga dirsinine ka tagaan isla waana ka sii tagaan mobilka iga qaatay mobilka laga qaatay noocoo ahaa 14 mobilka hadda ku lahay ma ku jira mise ku maqan ku jira ku lahay ku jira meel uu siimso waa ka maqay wali milisin xilliga uu dhacay xilligee ahayd soonkan soo dhaafay bisha la tii ku imritor inta xasuustani ramadaan gudihiiseen miya ramadaan gudihiiseen taraawiix loo jiray habeenay dadka ku dhacay dadka ma ka taqaanaa hadda arag meesha mugdi leerka mootoon ay dinsan meel duur eedo si wajadu ku argaa maxaa maqashay markii lagu dhacay kadib maxaa maqashay mobilka markii ay iga qaateen aan waaba ka sii tagaan ku dhahay mootada inay iga darsadaan ka cabsadeen dadka ku dhacay in qayb kamid ah la qabtay qaybna ay baxsid yihiin ma maqashaadi gormay maqash hadda leeyo maqlay maxaa laga qaatay telefoon laga qaatay noocee waa 14 meeqa qofood ahayn dadka ku dhacay iyo saddex ay ahayn yaa hubeysanaya sacbuuli aha ani hal nimo oo qor wata iga qaaday telefoonka waliba meel oo macnaha amniga lagu hubinayo mooda ay gaari watay gaari raaxo waa istaagay maraadada dijideen waa dijiyay soo degay dhahan telefoonka dusha ii saaraya waa iga soo qabsaday jaabka ku ritay wiil kale isla saareen oo asuna qaybta kale saaray xagaan lagu baartay aniga dhan kale lagu baartay wiilkaas waxba laga ma helin anigana telefoonka dushooba ii saaray lambar 1 oo qaatay jaabka u gashtay telefoonka duu qaatana galowr gaari ka kac telefoon kalaan lambarkayga aan wacwacay aan ku celcelshay wiilaa iga qabto ciidamada amnigan ah ninkina waa haynaa telefoonkiina waa isku haynaa amal ah ka dambana iyagaan la xiriiray waxaan tagay kuliyad meeshaas ninka la yiraahdo aan tagay oo biya la iga qoray telefoonkaaga waa la hayaa ninkina waa la hayaa
maxkamadana ninka la yiraahdo tagi anagaan ku soo wacay saasan ku imaad xilliga taleefanka laga qaaday iyo xilliga inta wacdid laga qabanayo taleefanka oo ku wayna lagu dhahay maxaa u dhaxeeyay wax yara daqiiqada u dhaxeeyaba adiga 20 nus saac ma dhameyn inta u dhaxeeyay saan soo socdaba ood weynaan aan xaafadayda hadaan imiday waa la iga qabtay taleefanka sax la dhahay waa hayna haye ifris 22 bisha labaad waqtigaas ee habeen soon ah soonka afar oo hayay habeen markii la hal saac amal ma maqashay dadkii ku dhacay in la qabtay waxa la isoo wacay 2 maalmood kadib lambarka hooyada la soo wacay sidaas la igu soo wargeliyay waan u tagay oobiya la iga soo qoray taleefankii waa la tusay fura la dhahay waan furay sawiradiido ku jiraan walba taleefankii xaqiiqa weeyaan dadka ku dhacay meeqa ruux ay ahaayeen 3 ruux yaa hubaysanaya sacbooli aha hal nin labana sacbooli haye ifris maxaa ka maqnaaday aniga laba telefoon ayaan maqan haye maxay kaliin laba telefoon oo 16 cidii ku dhacday ma taqaanaaday ها soo saari kartaa كاسوا yaa la socdaa لا ويل على سعد حلي adiga xeed afurka markii adiga la afuray oo taraawiixda adiga isha laga baxay taraawiixda isha meelaas dhanka waxay ka soo galeen Daniel dukaana waxa ku leeyahay waaxda Kordoba oo degmada Daniel ka tirsan marka xilli xeed habeena taariikhdu waxay ahayd 2026 bisha labaad 21 markay ugu soo ishaagay asig iyo wiil ninna iyo nin adiga ma asigoo kala ay ahaayeen marka asiga askari ka ahaay labada kale dhar caadi markay dukaanka wax yareysaan u dhaafeen markay dhaafeen way ugu soo laabteen marka ani meel oo ishaag joodariyaal dukaan taqaanaa joodariyaal tira badan korkooda fadhiyo marka wiil yara markii la joogo wiilka yar labada telefoon midna laftiida ku jirtay oo ani gaar ah u leeyahay midna lafta dukaanka ku jirta way iga gudbeen way soo laabteen markay soo laabteen ninkan qorayga watay wiilka yarna cimaamada watay afka u duubtay marka aniga joodariyaasha korkooda saaray wiilka yaraad albaabka agtiisa istaagay telefoonka soo u fiiray wiilkii marka hore arkay markay arkeen way soo laabteen wiilka kan dhashta qorayga maqlay amaanka markuu dhash siiyay waa arkay aniga si ima jeedo marka meel geesaha albaab geeskiisa joodariyaasha ay yaalaan waa fiiriyay markaa fiiriyay marka inuu arkayna oo qabaa inaad duubaaro marka aad telefoon ka duubaaro way suurta gali weysay qorayna amaanku waa u furaya marka qoray saan ula jareeha saas ula jareeha waxa asla ana ma ijeedi marka camera qoray kan telefoon oo ku haya ana shiba ka dhahay xaarafta ay waxas ma dhiyo marka inuu oo ninka wax dhaca waa dareemo dukaankan ana iskala oo mas'uuliyadiis iyo wax dhan ana iskala cunugi telefoonku isku dhajiyay markuu isku dhajiyay halkaas wuxuu ugu dhuftay baalka qoray liifkiis qoray markuu ku dhuftay laba tilaabo marka soo qaad dukaanku alxakabkiisa soo gala kaamirooyin oo iska ilaaliyaa marka kaamiro igu xirin kaamiro iska fiirinay kan telefoonku cunugu telefoon ka qaad markuu ka qaad marka aniga waxa isla kuma jeeday amal dhinacaygaasaan ugu aadiyay mid kamid ah arka marka masuur kan telefoonka adiga meesha saaran telefoon ma haya dhaanay kan uu yiraahdo saaxa oo heeweys qorayga marka amaanku u furaayo marka koow dhashta koowaad uu soo galay waa arka qoray inuu amaanku furaayo oo soo qabto qoraygu saan ugu dhaw waxa asla naftaada inta telefoon si saleed oo ku dhaafsiin farta ka saar markaas oo telefoonkii aan aho oo soo taag marka uu soo taag meeshiidana fadhiya marka wiilka yaraa uu soo diray wiilka cimaamada afku duubnaa oo soo baxay wiilka telefoonka waxaan damacnaa wiilka iyo wax dhan isku qabto wiilka inaan ta qabto aan celiyo dana waxa asla inta joodari ka soo booday dooro adoo ku dhufaa wiilkan saas ay ku baxsaaya telefoonka isee taag way soo baxeen markay soo baxeen kii hore wiilka marka koow soo galaan wiilka yara ka qaadeen marka dambana anaga ka qaadeen markay soo baxeen aniga marka laf dukaan aan leeyahay lafteeda lacag ku jireen marka banaanka u baxay dadka shacabka ahaan uu soo dhoobtay ayakana way soo muuqdaan marka waxa yeelay mid aan laf ka qaad telefoon ka qaad waxaan dhahay saaxiibo shirkadda iyo 141 wacay iyo xiraadaan labadaas lafood وين سي مقدار وابحا يركب فرمشيه u taag waxaan saaxiibo meesha ciidanka joog bilis militariga kuwa cusub la keenay waxaan ka taqaanaa mid aqaana waa wacay markuu wacay warniyo heblow waana la dhacay dukaanka ugu dhaganaa la dhacay hal askari iyo waxa waay laba wiil dhinacaas ay u bixin inta joogtiin meesh bay joogaan minugu ma hayna dhinacay u bixin noon tilmaamo wuxuu dhinacaan u bixin dhinacaan may u bixin ha ay way dhinacaas ana ka soo soconaa هاي nimanku way sii socdaan ogaw waaya 5 daqiiqo inta adiga 5 2 daqiiqo camal markay soo wareegto xabadaa dhaca xabaday markay dhaceen
isla markii oo ku celinay haddana markaan ku celinay yarkan ciidanka waxay dhaheen waa haynaa noo imaada waa baxnay dukaanka wiilka qoray ku dhufteena ugu tagay waa baxay waa soo baxay aniga yarka farmashiya soo baxnay ninkaana oo ciidanka hayaana u imaanay marka u imaanay waa la soo wada xerada la geeyay xerada markii la geeyay telefonta waxaan ku leeyahay taliyaa dhaha telefonta waxaan ku miliyaa aniga shaqo ku miliyaa telefonteedii marka waxaa qaaday labada wiiloo carartay oo asiga la socotay oo midna af ku duubnaa midna dhar caadi wata labadaasna aga qaadeen telefoonada waa maqan yihiin macnaha saas miya labadii telefoon way maqan yihiin qoriga qofka ku jaraynayo oo ugu taagayo ma ninka shacabka mise waa ninkan macnaha ninka lagu qabanayo mise ninka qoriga intuu qabta la jarayna qoriga ninka la jaraynayo ninka la jaraya asagoo qoriga markuu soo istaagay dhashta koowaad oo siiyay saano qoriga ugu dhaaf marka waxaa isla qoriga amaankiisa aniga meel ka saaray qoriga amaankiisa inuu furan yahay arka mogta waxaa isla marka inta taada gal oo adiga oo telefoon lagu dilahay ama waa helay ama waa weey iska sii marka yarkan inta soo wata kan wiilka labada kalena midna cimaamada afka u duubneed wiil adiga yar oo gaaban oo ahaa kan kalena wiil asiga dhirirka asiga la ego ahaa marka kaas kalena dhar caadi wata dariis wax wato oo hubeysan oo ciidan dawlad u eg ninkaan oo aabis markuu dukaanka ugu soo galay mir ahaan nin cabsan ma aha mise nin caadi oo mirkiis tamaam yahay wax balwad ama wax ka muuqata aan dareemin marka uu iimaanay nin asiga dhan diida oo degdegsan oo macnaha kulleeto wax inuu hor u soo xaday in kale markaas waa laga dareemay qofta mogta nin degdegsan oo asiga dhan oo xataa lugiis boor leh oo ahay oo meel dheer goorba ka yimid oo ahay marka aniga qoriga markuu ugu qabtay iyo markii aan arkay wixii dhan hal mar ay noqdeenba markii hal mar noqdeen hadii la soo qabtay wuxuu ciidanka soo qabteen oo xerada la tagay xaa ku geeyaa leer sheeg ninkan ganacsi waa tagi kartaa wax walba weydiisan kartaa maxaa sheeg canshuurta si laga qaadaa qoriga lagu gaday saa u dhacday markaas wuxuu yiri naagtayda aniga xaamilaha waxaan siin waa ma haynin hadda xaafidada biile ka soo cabay sidii u soo tagay markaas waxaan aniga lacagta aan bixiyay in aniga u dhacdo ma u bixiyay mise in ay sheeg waxaan nabad ku hel markaas wuxuu dhahay saaxiibow u naqamaaye telefoonkaada anaga kula raadiyahay ciid yaa lii gudbiyay maxkamadda yaa lii geeyay markaas waxaan dhahay maxkamadda hadii luu geeyay waa wixii gaab helay hadii luu geey waayana markaas arkeenaa hadii sheeg luqluq kala noqoto markaas wuxuu ugu dhahay niyow yaa shoota lii geeynin shoota eedo lii geeynin xalli markaas waxaan aniga inta ii imaato waa dhiigad saaxiibow wax ma haysto ama lacagtii iga soo daaday waxba ii sheegi karta si kale wax iga qaadi karta inaan laakiin qori ugu qabato hadda inaan saanaaba ku dhintaan dhahaa sideedo markaas taliyaa wuxuu yiri waa ku soo waceynaa sheeg lambaradaada noo qor lambaradiyaa u qoray subaxdii lambaradiyaa shitay niclaa ka gadta mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaan rabnaa inaan u cadeyno haddaay wuxuu ku doodaa waxay ka mid ahayd mushaarka iga soo daahay dadku inuu u dhaco u bareeyo mushaar soo daaha ma jira mushaarka sidiisa dhan wuxuu soo dhacaa 24 xilliga dhaca uu geysaan waa 22 wuxuu u bareeray baahiya ii geysay darteedu ku dacaan ducuna dukaanle ninkan lamid oo hadda dhaca oo dukaanliha inta u tago wuxuu dhahaa hadii culays ku haysto askari aad tahay waxaan ku ogolahay raashin qaado oo deen ah macnaheedu marka ninkan baahi ma rabin wuxuu rabaa lacag gaar inuu u dhaco balwad iyo wax ku gato waan mahadsantahay maxkamadda sharafta waxaad tiri xabadaan naqlaatid xabadahu ma isku horimaadi ahaayeen mase hal dhinacay ahaayeen qiyaas kartaa aniga xabadda meesha laga ridayo ma joogi aniga xabadda inaan maqlay kadibna jawaab lii siiyay oo ninka waa la hayaa leeyahay ma noo sheegi kartaa inta yihiin ma ninka ridaa su'aal weydiiyay aniga ma sheegi karo qorayna ma heenin ninkii lagu ridana ma ogtahay habeen madowna waa maxkamaddu sharax waxaad marqaatay ka tahay inuu gudoomiye marqaatay ka habeenada kamid ah anaga randa oo ku jirno oo joogno waaxda lagu magacaabo kordama ayaa waxa la soo wacay talikuuhay dad oo shacab dhibanayaal soo wacay markii soo wacay taliya aniga wasraacan oo ku baxnay meel oo luqluq oo marka meesha waxa meel kaam wado oo hal jid oo ka baxay jidka aan soo qaaday laamiga aan ku soo dhacay laamiga soo jidka aan ku soo lahanay waxaan naga hor yimid askari waxa dhacay iyo laba noo shacab la socdo oo heerarnay xabado ku dhuuray waxaan ahay isdilin qoriga dhiib waa isdhiibay qoriga ka qaadnay saasana macnaha aan ku soo gudbinay askariga meedi xabadeen asay hal baalato ku dhuuray anagana waa heeraray nimagaas aanay macnaha isdilin iskii gacana ku jirtaa aniga dili kala ma rabo isdhiib saas isku dhiibay marka waa soo gudbinay taliyaha horkeena gacanta ka saaray
أنت سمرقات كتا سؤال فرنتا markii ah heeraarseen oo dhahdeen raas dilin askaraan nahay han is dhibaateen kadib waxbadeedii ku riday waa maasanta maxaa arkayso marqaatiga ka taadi mudana gudoomiye waxaan arkay waa marqaati kaay dad dhibanayaa oo la dhacay ninkii dhacana aan waan soo qabto ay maxkamaddu sharax say wax u dhaceen muwaadiniin Soomaaliyeed soo waceen oo dabcan la dhacay waa ka raad qaadno wacdanay wadado ku sugan yahay wadado jooga saas awgeed waxay noo sheegeen waana dad waxay haystiin oo ka qaatay wadadaasna ka bax macdaba oo hubaysnaay waxaan la wadaagnay madaxdeen waxaan dhaanay inuu hubaysan waa qorayaal foodhakeen soo hubaysan ayaa dhacay muwaadiniin Soomaaliyeed waajibku waa noo idmeena waxay dhaheen ku baxa wixii ka soo baxana la soo soosii waa ku baxnay ilaa wuxuu qadaray inaan aragno oo aan qabanno intaan qaban ka horna hal baalood uu nuuriday haddaba uu hal baalood nuuriday aniguna meesha mas'uulka ah ciidanku gaaminayay waxaan ku iri baalood dabaaridin isdib qof wax ku yeelay mayse saas oo weedaan ku soo qaban gacanta markaa ku dhigteen xagee geyseen eedeysanaha mudana gudoomiye gacanta markaan ku dhignay waxaan la wadaagnay madaxdeennii waa wacnay waxaan dhana waajib waa gudanay dadkii oo ninka dhaca geystay waa haynaa gacanteennay ku jiraan wax problem oo gaarana ma jiraan wax dhibku noo geystana ma jiraan saas awgeed way noo yimideen ayagaa la waday oo la wareegay mas'uuliyadiisa labadii qof oo shacabkeed way carareen ninka eedeysanaha askariga oo damcay inuu dagaalamo hal baalood ku riday kadib ciidamada maanka waxay ku dhaheen isdirin isdhiibay dhahan kadib way isdhiibay waxayna ka qaadeen 3 telefoon 2 kale oo telefoon nin dukaanaha laga dhacana waxaa la cararay nimanka kale oo shacabka kadib halkii waxay ka heleen inay raadiyaan dhibanayaashii wayna heleen dhibanayaashii moobiladii 3 aheed waxay dhaheen marka anaga ay soo wacayna lambaray ka qorteen eedeysanaha ay qabteen iyo moobiladii 3 aheed isla habeenkii waxay keeneen taliska saanka sirdoonka oo ku yaalo kulliyadda jaalisiyaad halkaas lagu soo xiray isla habeenkii 21 ee taariikhda waxaan galbaarteed u furnay labadii bisha 3aad 2026 kadib mudana gudoomiye garsoore baaritaan dheer aan sameynay markii dadkii dhibanayaasha aan waxaan ka qornay nimankii soo qabtay askartii aan waxaan ka qornay cadeeno waxa ay soo baxday inuu dambi dhacay dambigaasna uu galay eedeysanaha maanta maxkamadda hortaagan oo lagu magacaabo daahir maxamuud warsame faarax maxkamadda waxa u sharaxdaa dhibanayaasha teleefanadooda la haayo iyo teleefanada maqan cid iska leh dhibanayaasha teleefanada la haayo waxaa waayo bilaal nuur jimcaale cabdi maxamuud xuseen maxamed ibraahim saleebaan saddexdaas nin saddex teleefan waaweyn waa la hayaa labada teleefan oo maqan waxaa iska leh cabdiraxmaan cabdullaahi maxamuud oo ninka dukaanlaha su'aalo furanta meesha markii la soo qabanay eedeysanaha qaabka lagu soo qabtay warbixinta waa heshay Soomaa iska hor imaad inuusan ka dhicin meeshaas waa ogaatay Soomaa iska hor imaad eedeysanaha xabad buu riday hal baaloto kadibna nimankii askarta qabatay ayaa u sheegay inay isdhiibo inay isdilin oo si nabad uu qoriga ku wareejiyo waxaa caddeynaysaa hadda dhacidda markii laga yimaado inuusan iska hor imaad dhicin labada dhinac oo ninkaas silsilmiya oo labada isu dhiibay uu isdhiibay isku dayay oo horta inuu dagaalamo kadibna ciidankii baa si wanaagsan oo la hadlo oo sidaas oo isku dhiibay markii dambe okay almost teleefanada eedeysanaha lagu soo qabtay waa 3 teleefon sidaan hore u soo sheegnay waxaa kala leh gaadiidleydii ninkii tukaalaha 2 teleefon u lahaa meeshaan aan keenay labadiisa teleefon nasiib darro waxaa qaateen tuugtii haddaan sharciga baxsadka ka ah ninka la socotay saddexda kalena waxaa kala lahaa dhibane maxamed ibraahim saleebaan oo teleefonka noocaas leh u yeelay inuu asagu lahaa teleefonka labaad waxaa la dhibane cabdi maxamed xuseen oo ah ninkii gaariga yare cad watay iyo dhibane bilaal nuur oo ah ninkii gaariga dhaynada watay goobtan waa goobtii uu ka dhacay dhacii loo geystay dukaanlaha dukaankan waxaa ku yaalaa waaxda gurdamac gaar ahaan kaamamka gadaal dambe markii uu gacanta soo mariyay gaadiidleyda uu xaafadaha soo dhex galay ayuu dukaankan u leexday waa kana dukaanka saan u yaalaa dukaan bagaashka iyo raashinka iyo gado dukaankan uu soo galay mudana gudoomiye wuxuuna ka dhacay mobile targetkiisu wuxuu ahaa mobile ma ahayn badar sida uu sheegayo gaarigan waxa waaye gaarigii uu watay dhibanaha waxa uu maraya waxa waaye meesha loo yaqaan warshada maqaarka jidcadahaas uu galay meeshaas ay u jeedaan mudana gudoomiye oo geed garoobka leh ayuu ugu dhuuntay
checkpointkii uu iskaga dhigay ciidamada amniga waa istaajiyey soo degu dhahay mobilkii uu ka qaatay kadibna socod waliba xataa intaas ugu koobinay wuxuu ugu daray lif ayuu ugu daray lif waatana warshada maqaarka meeshaas uu ku dhacay waliba xilay ramadaana mudan gudoomiye waxaan rabaa maxkamadda inaan soo bandhigno qorigii iyo booshkii uu ku dhacayay shacab iyo moobeeladii waa kuwana moobeelada gacanta lagu hayo saddexda moobeel ahna waa kuwaas laba moobeel ay la maqayin eedeysanayaasha fakadka marka laga reebo maxkamaddu waa maasan tahay mudane gudoomiye garsooreyaal eedeysana dable xooga 45262 daahir maxamuud warsame oo naaneystiisa loo yaqaan maska mudane gudoomiye garsooreyaal eedan ku soo eedeynay ee xafiiska xidhaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ka soo baxday waa uu qirsan yahay qiraal ayuuna ka yahay maxkamadda horteedana waa u ogolaaday markii maxkamaddu ay ka weydiisay su'aal si waafaqsan qodobka 103 oo ah dembigan ma gashay mise ma gelin mise dooda ka qabtaa si waafaqsan qodobka 104 wuxuu ku jawaabay waan galay guriga iyo culayska uu sheegay wax ka jir ma laha baan waaye wax ka jir ma laha baaristu waa uu weydiinay baaristu way tagtay sida uu hadda sheegayo nimanka uu sheegay naana iyo kanyaga la dhahayo oo hadda aan meel lagu sheegin ya asagoo maska la dhaho waxay ayaga jiman isku noqday macnaha bil ramadaan oo jinki iyo shaydaankii xiran yahay ay fikirkaas shaydaaniga intay ku fikireen ay baxeen waliba xilliga ay dhac geysanayaan muwaadiniintii maanta oo dhan Soomaaliyeed oo Ilaahay adoomaha u ahaayo Soomaaliya maanta dhan cibaadada u tagnay taraawixi ku jireen masaajidaday ku jireen xilligaas uu dhac ku aatiyay salaadii afurka markaas loo qaaday hore ka bilaabay mudane gudoomiye waxaan maxkamadda ka codsanaynaa dadka uu dhacay waxay u badnaayeen rag shaqaysta oo aabayaal oo gaadiidley oo salaada subax Allahu akbar marka la dhaho kaca habeenkiina iyagoo daalan oo Chinese ula ilmahooda iyo aasiskooda hurdada ku dhacay fursad aan helin raggaas intuu jidka u galay oo si naxariis dara u dhacay mid kamid ah xataa liif la dhacay wuxuu markaa sheegaya mudane gudoomiye aniga iyo laba nin oo shacab go'aan qaadan u leeyahay oo magacyo jinniyo ku sheegay wax ka jira male asaga abaabulo u ahaa asaga hogaaminaya nimankaas kulli waxa ka cadeynay maxkamadda horteeda inta ka cadaatay in uu qoriga ku qabanayo asaga shakhsiga dhac loo geysanayo ayagana ay u soo qaadayaan marka asaga hogaaminaya ma aha nimankaas waxay kula tashtay kula heshiiyeen ma asaga ku dhalatay fikradaas mudane gudoomiye maadaama marka askarigan daahir maxamuud warsame la magac baxay magaca halista loo yaqaan ciidamada dhexdooda uga baxay maska mudane gudoomiye sida naaneystiisu halis ugu yahay horta ummadda iyo shacabka Soomaaliyeed maxkamadda horta waxaan ka codsanaa sharafkii haybadii qabkii iyo quruxdii iyo aaminaadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu dhaawacayay maxkamadda sharafta leh inay marka koowaad horta ay ka ruqsayso ciidamada qalabka sida maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaa qodobada ka hadlaya culayska dembiga in ay ugu fiiriso qodobka 484 burcadnimada ah qaabka uu u dhaqmay asagoo mushari ah oo askari sharaf lah maxkamadda waxaan ka codsanaa in ayna bun uga dhimin ciqaabtaas ciidankana ay ka ruqsayso maxkamadda sharafta leh maasan tahay magacaygu waa abukaat axmed ciise axmed waxaan qareen u ahay eedeysane daahir maxamuud warsame maska sida uu si waafaqsan 15 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxaa meesha u taaganahay muwakkilkayga waxaa lagu soo eedeeyay laba eedood eedda koowaad waxaa waaye waxaa u geysatay dhac eedda labaadna waxaa waaye waxaad samaysay waxaa lagu eedeynayaa in aad dhac geysatay oo ciidankii gaaf wareegayay maxaa badaysa waaye meesha uma istaagin inaan ka difaaco dhaca maxaa jira asaa qirsan dhaca wuxuu leeyahay anaa tegey anaa qirsan dhaca taasi marka waxaa waaye maxkamadda ayaa aragtay horteeda ku sheegay laakiin aniga hadda meeshan waxaan u taaganahay waa laba arrimood kow in maxaa la yidhaahdaa aysan jirin wax la yidhaahdo iska horimaad ninkaani markii ciidankii uu kusoo dhex dhacay inuu maxaa la yidhaahdaa istaagay hubkana wareejiyey si sax ah oo xafiiska xeer ilaalinta marka wuxuu kusoo eediyay 484 wax waa si guud u soo qaatay waa qodobo badan yahay waa kala firqo soo maqaada marka 484 guud iska soo qaatay marka waxaan midaas ka codsanaynaa maxkamadda codsigeena dambe midda ugu qafiifsan inay noo qaadato maxkamadda midda labaad waxaa waaye mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh marqaatiyaashu waxay caddeeyeen in iska horimaad uusan dhicin muwakkilkaygan uusan xabad samaynin oo u hoggaansamay haddii la yidhi istaag hubka keen
oo dhigay wax maxaa la yidhaahdaa iska hor imaadan uusan meesha ka dhicin waxaa labayso mudane guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh wax allaal wixii caddeyn oo markhaati meeshaan keenaya xafiiska xil ilaalinta waa uu dadka dhibanayaashii leh bis dhibanayaashii leh uu soo sawiray goobtina waatigii waa soo sawiriyey waa intii u bis inta dadka ay sheeganayeen maxaa la yidhahdaa ay dhahayeen waxaasaan maxaa la yidhahdaa samaynay intaasaan nagala qaatay dadkii dhibanayaashii maxkamadda ka hor sheegeen leh bis dukaankan waa soo sawiriyey jidkiina waa keenay ee wax kaloo gooniya oo sameeyey oo maxaa la yidhahdaa sax ma jiraan marka laga reebo qiraalka muwakilkeyga waxaan kaloo rabaa mudane guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxaa meeshaan ka caddaatay oo markhaatiga dhibanayaasha iyo dadka soo qabtay iyo baaraha kiiska iyo xafiiska xil ilaalinta dhammaan ay wada sheegeen in muwakilkeyga naaw wax ku maqan aysan jirin waxaan rabaa middaas inaan maxkamadda u iftiimiyo wax allaale wixii uu haayo uu qaaday muwakilkeyga waa lagu qabtay waxaa ka mid ahaa qorogiisa iyo booshka iyo 3 taleefon ee lagu haayey waa lagu qabtay maxkamadda waxaan ka codsanaynaa dadka fakada in la raadiyo wixii ay la fakadeenna laga soo qaado dalka ayadaa dowlad ka ah ayadaa laamaha amniga jooga xafiiska xeer ilaalintaa jooga maxkamaddaa joogta dadkii fakaday oo naanaabkow ka ah oo la baxsaday maxaa lahdaa taleefanada kale in maxkamaddu raadiso si walba ay ku keeni karaan ay ku keenaan muwakilkeygana aanan loo raacanin sida maxaa lahdaa dadkaas wax ay qaateen walaa tasiru wasilatu wisra ukhraa sababto dad waaweyn waay lamana soo qasbin ayaga ayaa yimiday oo la soo galay dembiga waana ku qanacsanaayeen haddii taagtaag yimida ninkaa inta lagu mashquulsanaayna fag yidhahdeen waxaan rabnaa nimanka taleefanada maqan inaan muwakilkeyga la saarinaan rabaa maxaa jira ma qaadan isagu mana haysan inuu fakada markhaatiyaashana waa sheegeen baarahu waa sheegay xafiiska xil ilaalintana waa sheegay waxaan rabnaa inta uu muwakilkeyga ka joogo waxay tahay dembiga waa galay laakiin kuma tasarufin dembiyaa dhacay bis dembiga dhaca marka ma sii faafinoo ma cunin ma isticmaalin isla marka uu dembigii sameeyeyba horaa laga qabta marka maxkamadda taasna waxaan rabaa saas uu sameeyeyne maadaama marka hore uu khalad galay wuxuu u diiday muwakilkeyga khalad labaad inuu galo saas darteed wuxuu is yiri hadaaya khalad gashay mar labaad ku sii naqanin hubka waa dhiibay dukumentiyadii taleefanadana waa baxshay saasaa lagu xiray waxaan rabaa maxkamaddu middaas inay noo fiiriso waxaa kaloo rabaa inaan kusoo gebagabeeyo oon rabaa inaan ku adkeeyo codsigayna in maadaama marka ugu horeysay muwakilkeyga oo waxdhac oo geystay uu yahay nin asgari oo 5 sano maqarana uu yahay in ay tan u naqato maxaa la yidhaahdaa wax la yidhaahdo ififaalo fiican inuu dalkan dowlad ka jirto oo qof la dhici karta aysan jirinin dadkana waxooda lagu wareejiyo maxkamadduna ay u fiiriso si fifaalaha dembiga fududeeyo ayaan ka codsanayaa maxkamadda sharafta leh maxkamaddana maasanta daahiro xafiiska xilaalintu ku soo eedeeyey abukaataaga wuu ku difaacay dhibana la dhageystay sidoo kale waxaa la dhageystay markhaatiyaal goobjooga ahayd maxaa kuu baxay waxaa ii baxay kiiska koowaad oo 2 kiisaa lagu eedeeyey inaan xabadeeyey iyo inaan wax dhacay qodobka koowaad inaan wax dhacay waa sax kama been sheegaayo ilaahay baa ila ogaay rasuulkiisa ila ogaay qaladkaas waa gale laakiin kiiska labaad oo inaan xabad aan riday waa been haddaan xabad ridaayo hal baalood ku ridi leeyahay la dagaali lahay waxaan ku taqorayo waay maadaama dembi aan galay oo lihaayo dembi kalena aan gelin hubkiyaa wareejiyey waa isdhiibay sida saxda oo maxkamadda maanta ila kiiska liya cadin anasada maxaa lahaa aniga magacayga daar maxamuud warsame la magaca maska madow lagu macadiray maska madow yaa ku bixiyay maska madow ayaa xaafadda ugu baxay banooni adiga gacantii amniga soo gashay labada kalena xogtooda ciidanka mala wadaagtay waa gudbiyey riboodkooda ane xaafadooda ma taqaanaaday xaafadooda waa aqaanay meel waxaa isku baranay oo magaalaha qaybteeda dambe degmada dhalinyar ahaan aan isku naqiinay falkaas aan isku raacno ciidanka ma geysay marka xaafadahooda ragga maqan ee baxsadka waa jaanis u meelin lii wado maxkamadda maxaa ka codsanay maxkamadda sharafta leh ka codsanaa Soomaali horta been way sheegtaa kuma maado tuug la qabtay talama lahaan aniga gartaan waa galay fahant maxkamadda ka codsanaa in xorriyadeeda biisiiso qaladkan qalad lamidana aan u laaban taleefanada lagugu soo eedeeyey waa 5 taleefan 3 kamid ah gacanta lagu hayaa 2 maqan labada maqan xagee la geynaa marka labada maqan haddii liigu weydiiyay anaan diibo diyaaraan waa haddii xorriyadeeda ku xiran tahay maadaama markaas gacanta lagu yeynay ii fariis Sayman aw
kaal warqad caddeena laga qoro inuu la wareegay ii fariiso bilaa labada taleefkeelada kana maxkamad markay dhammaato xafiiska tag inaad la wareegtay warqadaha laga qoraa ii fariiso cabdi maxamed xuseen aw kaal maxkamad markay dhammaato warqad caddeena laga qoraa inaad la wareegtay caddeynayso ii fariiso kiiska oo garmaqal ka yahay dable xooga 45262 daahir maxamuud warsame maska madow halkaas ayuu ku eegyahay maxkamaddu way soo gabagabaysay maalmaha soo socda ay go'aanka soo saari doontaa insha Allah galka waa xiran yahay